السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وكرسا aqoon.com oo laga barto cilmiga ICT-ga iyo waliba computer science-ka muuqaalkan maanta waxa uu ku saabsan yahay qaabkii aad shabakada ama website-ka isaga diiwaan gelin lahayd iyo qaabkaad wax uga baran lahayd iyo waxyaabaha aad ka baran karayso ee hadda diyaarka ku ah iyo waliba waxyaabaha koorsooyinka soo socda ee website-ka aan ku soo kordhinano marka aad soo gasho ee aad search ku qorto kororsa aqoon.com ee aad soo gasho website-ka videoga daawanaysa hadda waa kan ugu horeeya waa videogan weeyaan markaad hoos socotaan halkan waxaad arkaysaa koorsooyinka imika diyaarka ah ee ku jira website-ka marka koorsooyinka aan website-ka soo gelin doonaa waxay noqon doonaan computer application ama isticmaalka aasaaska computerka oo kale koorsooyina imika waxa ku jira dhammaan koorsooyinkii computer application-ka gaar ahaan Windows 10-kii oo ah isticmaalka aasaaska computerka Word-kii iyo PowerPoint-kii sidoo kale Excel-kuna isna waa uu soo socdaa oo Excel-kana isna waan soo gelinaa koorsooyinka kale aad ka heli doonto website-ka waxa kamid ah multimedia oo waxaan soo gelin doonaa koorsooyin multimedia video editing oo aad ku baran doonto qaabka videoda loo edit gareeyo oo baran doono software-da video editing-ka lagu sameeyo sida Adobe Premiere-ka Camtasia Filmora dhammaan kuwaas aynu baran doonaa sidoo kale waxaanu baran doonaa graphic design-ka oo koorsooyin graphic design-na way soo socdaan ay kamid yihiin Photoshop-ka InDesign-ka Illustrator-ka iyaguna waa ay soo socdaan waxyaabaha kale website-ka aad ka heli doonto ama koorsooyinka kale aan ku soo darano waxa kamid ah web design-ka oo sida website-da loo design gareeyaa ama website-da loo sameeyo waxaan soo gelin doonaa koorsooyin web design iyo waliba koorsooyin web development koorsooyinka web development-ka waxaan ku baran doonaa sida HTML-kii CSS-kii JavaScript-kii dhammaan waxyaabahaas aynu ku baran doonaa sidoo kale waxyaabaha aynu soo gelin doono website-kana waxa kamid ah programming baynu soo gelin doonaa sida PHP JavaScript Python ayaynu soo gelin doonaa luqadahaas ayaynu soo gelin doonaa sidoo kale database-kii baan iyaguna ka maqnayn oo database-kana waxaynu baran doonaa MySQL iyo waliba SQL Server oo database-kana waynu soo gelin doonaa koorsooyin database-ka marka website-ka maxaad ka baran doontaa haddii aad tahay qof inuu isticmaalka computer-ka u barto doonaya website-ka horta website-kaagii waxaad baran kartaa koorsooyinka basic computer application-ka waxaad baran doontaa Windows 10-kii waxaad baran kartaa Word-kii oo kale PowerPoint-kii oo presentation qurux badan ku diyaarin karayso koorsooyinka kalena way soo socdaan video editing ka mid yihiin ama multimedia web design and development-ka programming-ka database management system-ka sidoo kale website-ka waxaad ka heli doontaa downloads baad ka heli doontaa oo software-radii lacagta ahaa ee badanka la iibin jiray ama aanad heli jirin software-radii waxaynu heli doonaa ama website-ka aad ka heli doontaa free oo lagu sharaxay qaabka loogu duubay computer-kaaga software-rada aad ka heli doontana waxaa kamid ah Photoshop-kii oo kale iyo ama software-rada Adobe Programs-kii Microsoft Office-kii Windows-kii dhammaan iyo qaar badan oo kale iyo software kasta oo isna dhahno software-kaas dadka u anfacaya ama dadku u baahan yihiin ama software kasta oo soo codsataan waa aan website-ka soo gelin doonaa sidoo kale marka dhammaan waxyaabahaas oo dhan si aad u access garayso oo aad website-kan aad waxyaabahan ku jira imika koorsooyinkan oo kale aad u geli karto imika haddaan galo mid kamid ah koorsooyinkan PowerPoint-ka oo kale haddaan galo on click siiyo wuxuu geynayaa casharadii ama koorsada PowerPoint-ku geynaya mar alla markaad soo gasho waxaad arkaysaa course-kii overview-gii ayaabaad arkaysaa marka waxaa shardi ah si aad casharada u hesho dhammaantood oo curriculum-kan aad gelaysaa casharadii markaa wada geli karaysaa markaad curriculum-kan rabto laba tab baa kugu halka kaga soo baxaya course kasta waa overview iyo curriculum-kan waa casharadii markaa markaad curriculum-ka gasho casharadii baad arkaysaa casharadan ma daawan karaysid marka laga reebo ka ay preview ku qoran tahay kuwa ay preview ku qoran tahay kaliya ayaa daawan karaysaa balse kuwan kale oo dhan qof ayaa ku xiran oo ma geli karaysid ilaa aad is register garayso course-kan aad is enroll garayso ama aad is qorto course-ka mooyaane marka maxaanu imika eegi doonaa qaabkaad isku register gareyn lahayd iyo qaabkaad login u samayn lahayd qaabkaad koorsooyinka u enroll gareyn lahayd marka aad website-ka soo gasho waxaad tagtaa registration page-ka registration-ka tag ama menu-ga registration-ka tag ka bacdina form-kan form-kan ayaad buuxinaysaa halkan ugu horeysa magacaaga aad gelinaysaa tusaale ahaan magaca waxaan gelinaa halka soo qaad Khalid Ahmed Jaamac baan gelinay Khalid Ahmed Jaamac weyn magacaaga ka soo qaad username-kana waxa aad tiraahdaa Khalid 1 ama Khalid 345 oo kale numberkaaga marka la gelinaysaa numberka imika waxaan gelinayaa numberkaygu ma gelinaya hadda imika balse waa inaad number sax ah geliso numberkaaga aad geliso markaad diiwaan gelinayso weeyaan user email-kana ama email hadda qofkan uu leeyahay imika email-ka waxaan gelinayaa tusaale ahaan kayga baan gelinayaa
haddii kale website-ku kaama yeelayo ilaa aad geliso email mooyaane marka foomkan aad buuxinaysaa password waa inaan u samayno passwordkina waxaan u samaynaynaa ka soo qaad Khalid 123 marka passwordka halkan aad ka heli karaysaa halkan ayaad ka heli karaysaa okay Khalid 123 marka waa inaad passwordka saxdo markaad geliso labada goorba waa inaad passwordka saxdo oo passwordka xaqiijiso markaad mar geliso passwordka markan labaadna waa inaad yani imika wuxuu ku leeyahay waxaad qalatay xaqiijinta passwordka oo passwordkan dambe markaan gelinay Khalid bin halka qornay kaana halka HT baan ka tagnay marka haddaan imika HT raaciyo waxaan odhanayaa markaan dhammaystiran buuxiyo dhammaan foomkan submit buttonkan submit baan klik siinaya markaad foomkan buuxiso eed magacaaga halkan geliso saddexan oo geliso username-ka aad ku soo geli doonto username-kani wax kale ma aha waa shayga markaad login odhan doonto markaad login tiraahdo ama inaad soo gasho website-ka aad doonaysid waa ka aad ku soo geli lahayd sidoo kale phone number-ka waa inaad numberkaaga saxda geliso user email-kana waa email-ka lagala soo xiriiri doono waa inaad email sax geliso sidoo kale password waa inaad samaysato aad xasuusnaato password-ka kabacdina passwordka mar labaad aad ku celiso kadibna submit dheh markaad submit tiraahdo wuxuu ku odhanayaa hambalyo waa lagu diiwaangeliyey ayuu ku odhanayaa page-kan aana kuu soo baxaya page-kan ayaa kuu soo baxaya haddaba si dhammaan waxyaabaha website-ka ku jira hadda dhammaan koorsooyinka website-ka ku jira iminka si lagugu fasaxo oo akoonkaaga loo xaqiijiyo waqti yar baad sugaysaa si akoonka loo xaqiijiyo si dhammaan koorsooyinka ku jira website-ka lagu xaqiijiyo iminka wax yacni koorsooyin oo lacag lagu charge garaynaya saasi ma jirto kaliya ta registration kuma lacag iska bixinaysa ala course bay lacag noqon doonaan beri dhow balse imika sanadka u horeeya waxay ahaanaysaa qofku marka uu is-register gareeyo kaliya ta waxa laga qaadaya lacag yar oo registration kaasa inta course uu doonayna waa u geli karaya marka si lagu fasaxo dhammaan koorsooyinka loona xaqiijiyo akoonkaaga waa inaad nala soo xidhiidho waa inaad ku dirto lacagta khidmadda diiwaangelinta nambarada halkan kaaga muuqda magacaasana ku soo baxaya Cabdilaahi Cismaan baa ku soo baxaya kadib markaad intaas samayso waxaad gelaysaa akoonkaaga login baad oranaysaa marka lagu xaqiijiyo waxaana ku gelaysaa username-ki iyo password-ki aad samaysatay kabacdina course kastood doonto ayaad qaadan kartaa shay kastood u baahan tahay ayaad soo download garaysan kartaa marka haddaad wax caawimaad u baahatana waad nala soo xidhiidhsaa hadda waqtigan aan kula hadlayo website-ka dhammaan koorsooyinka ku jira saddex course baa ku jira laba kalena imika waa diyaar waan soo gelinaynaa على كورس لعق لو ما تشات قرينايو كليا تا waxaan ku oranana waxa website-ku imika dhammaan koorsooyinka ku jira imika kaliya ta wax laga doonayo registration $10 oo registration course ala course ka doontaad qaadan karaysaa dhammaan koorsooyinka dhan baad wada baran karaysaa ka aad doontaad qaadan karaysaa kaliya $10 ee isku register gareynayso baad soo diraysaa aad ku soo diraysaa lambarradan xagga sare kaaga muuqda khidmad ayro kaliya laga qaadaya dhammaan resources kala dhan free ku ahaayaan balse waa inaad ka faa'iideysato fursad weeyaan $10 ma ahaanayaan على course lacag bay noqon doonaan oo على course lacag bay noqon doonaan tusaale ahaan word ko kaliya ayaa lacag noqon doona basic computer application kala lacag noqon doona web design ko kala lacag noqon doona koorsooyinkan imika waxaad $10 ku baranayso dhammaantood waxa laga yaabaa inuu halkii course uu $20 dhawaan noqdo ama halka course kaliya uu $20 noqdo marka ka faa'iideyso fursadan $10 kaliya iska bixi website-kuna wuxuu free ku ahaanaya muddo dhan hal sano oo dhan ayuu free ku ahaanaya halkaas sanana waxaad wax kastoon soo gelino website-ka hadday tahay programs hadday tahay courses dhammaan waxaasoo dhani free bay ku ahaanayaan waad geli karaysaa imika markaad saa u dhamayso aad khidmadana dirto imika qofka waan register gareynay ama qofkan uu is register gareeyey khidmaddii lacagtina uu diray ka soo qaadba waa inaan qofkan imika u ogolaado haddaan imika login idhaahdo oon login days idhaahdo oo akoonkii gal imika aan samaynay ama username-kii aan marka dhaweyd u sameynayno qofkan muxuu ahaa waxa uu ahaa username-kii Khalid 345 password-kana muxuu ahaa Khalid 123 password-kana ahaa kabacdina waxaan sameynaynaa login baan imika odhanaynaa login wuxuu ku leeyahay sug inta akoonkaaga la xaqiijinayo marka waa inaad sugto ilaa inta akoonkaaga la xaqiijinayo si laguga xaqiijiyo akoonka maxaad samaynaysaa waad nala soo xidhiidhaysaa nambarada ku qornaa ee arkaysay ayaad la soo xidhiidhaysaa deetana khidmaddii waan soo diray ee akoonkayga i xaqiijiyaad oranaysaa marka lagu xaqiijiyo akoonkaaga mar alla marka akoonkaaga loo xaqiijiyey waan soo xaqiijiyey waxaan odhanaynaa Khalid 123 buu ahaa password-ku markii dhaweyd muxuu ina lahaa suginta akoonkaaga la xaqiijinaya imika haddaan login idhaahdo
hore baad ka gelaysaa deedna maxaa kuu soo baxaya soo dhawow yani usernamekaaga baa kuu soo baxaya marka account-kaaga baa halkaas uga geli karaysaa maxaad samaynaysaa markaa waxaad tegaysaa homekii oo kale homekii markaad tagto iminka waxaad tegi karaysaa koorsooyinkii oo kale tusaale ahaan kan powerpoint oo kale aad gelaysaa markaad powerpoint-ga click siiso halkan maxaa kaaga soo baxaya markaa kooraskii powerpoint-ga iminka ayaad samayn kartaa enroll inaad tiraahdo ood isqorto markaad akhrido overview-gan enroll markaad tiraahdo iminka waayo iminka waa isregister garaysay iminkaad enroll samayn karaysaa haddii aanad isregister garayn enroll ma odhan karaysid ama kooraskaaga ma geli karaysid koorsooyinka oo isma qori karaysid koorsooyinka marka koowaad waa inaad isregister garayso markaad isregister garayso waa inaad nala soo xidhiidho tiraahdo noo aqbal account-ka marka account-ka lagu aqbalo waa in aad log in tiraahdo oo aad kooraska doonaysid ama inta kooras doonaysidba aad is enroll garayso marka iminka kooraskan oo kale muxuu ka kooban yahay 25 cashar buu ka kooban yahay 25kii casharka ugu horeeya oo kaliya ayaa ah preview kuwan kalena imika waad geli karaysaa oo qofulkii yar halkan uu ka qaadmay casharkaa doonaysid marka waxaad samaynaysaa keliyata click un baad siinaysaa casharkiina kabacdina casharkii maxaad samaynaysaa casharkii hore ayaa kaaga bilaabmaya mar alla markaad casharka dhamayso ee casharka tusaale ahaan imika casharka koowaad oo kale haddaan casharka koowaad tagno casharkii koowaad introduction-ka waxaad samaynaysaa casharkii daawato casharkii halkan kuugu dhamaystirmo buttonkan complete dheh micnaheedu waxa weeyaan casharkaad dhamaysaba complete dheh kabacdina bogaskana kuu soo boodaya ma rabta inaad casharkan dhamayso buu kuleeyahay micnaheedu yes ka dooro markaad yes tidhaahdo casharkaa koowaad waan dhamaynay casharka labaad oo kale aan teganaa isna markaad dhamayso waxaad nasaa complete markaad daawato yes iminka 2 cashar baynu saa ku dhamayn inaad ka baxdo markaad doonaysid buttonkan back to course baad click siinaysaa dabadeedna halkan maxay noogu soo qormay iminka meeshu waxay ahayd 25 cashar baa iminka halkan noogu jiray course-kan waxaad dhamaysay 2 ka mid ah casharadii boqolkiiba 8 baad maraysaa markaad casharada dhan wada dhamayso casharka labadan dhamaynayna waa kan tick inoo saaray sax waa kan inoo saaray labadii aan dhamaynay marka casharadii waa kuwa saas loo dhex jibaaxaysa casharka aad doonaysid baad click siinaysaa casharka doonto markaad click siiso casharkii hore ayaabuu kaaga bilaabmaya okay bal course kale aan eegno kan waa powerpoint-gii buu ahaa back to course baad oranaysaa markaad back to course tidhaahdo haddaan imika courseskaas kala galo courseska markaan galo halkan inta course igu jirta baad arkaysaa okay tusaale ahaan kan wordka oo kale ama kan oo kale aan doonanaa click baan siinaynaa markaad click siiso halkan maxaa kaaga soo baxaya overview-gii ama information ku saabsan course-kan waxa uu yahay waxyaabaha aan ku baran doono dhammaan waxyaabahaas oo dhan kabacdina maxaad samaynaysaa inaad isqortaa doonaysaa mar baad soo register garaysay registration kaliya wax kale lagama rabo dhammaan koorsooyinka oo dhan haddaad mar is register garayso dhammaantood waa ku wada free enroll un baad kaliya odhanaysaa enroll markaad tidhaahdo course-kii waad geli karaysaa casharadii ku wada furmayaan waa kuwa casharkaa doonaysaad geli karaysaa halkan waxaa kugu jira xataa casharka koowaad markaad dhamaysato casharka labaad waxaad la soo degi karaysaa markaad daawato casharka labaad office-kii oo kale waxaad halkan kala soo degi karaysaa office 2013 qaabkii loola soo degayay qaabkii loogu install gareeyay dhammaan wixii oo dhan halkan ay kuugu jiraan markaad course-ka dhamayso casharkaad dhamaysto complete baad odhan karaysaa buttonkan complete sidoo kale haddii ay su'aalo kale aad qabto ama comment aad rabto inaad bixiso halkan aad ku qoraysaa comment-kaaga kabacdina waxaad oranaysaa tusaale ahaan waan fahmay casharkan kabacdina maxaad oranaysaa post comment kabacdina comment-kaas waanu arkanaa oo waxa uu host ka maraya casharka yacni comment-kaagan wuxuu sugayaa buu kuleeyahay in la xaqiijiyo ama in la ansixiyo okay marka comment-kiina saasaad comment-na sidaas ayaabaad comment nooga bixin karaysaa casharada aad dhiganayso okay buttonka yar haddaad click siiso wuxuu kaa qarinaya qaybta sidebar-kan haddaad sidoo kale click siisana waa kuu soo saaray halkan casharadii aad saan uga dhex socon karaysaa casharka aad doonaysid tusaale ahaan casharkaas 17aad oo kale aan doonaya click un baad siinaysaa click markaad siiso waa kaa casharkii hore buu ka bilaabmaya hore ayaaba casharka bilaabmaya marka casharadu waxa ay leeyihiin sectiono tusaale ahaan sectionka koowaad sectionka labaad section kastana intaasoo cashar baa ku hoos jirta section kastana intaasoo cashar baa ku hoos jirta tusaale ahaan casharkan wordko kaliyaati waa 40 cashar weeyaan sectionka koowaad waa hordhac oo kaliya waa 2 cashar oo casharka sida loo soo dhowlgaraysanayo office-ka iyo casharka hordhaca sectionka labaadna waa 5 cashar oo kale sectionka doonayso click baad siinaysaa dabeetana casharadiiba ku wada furmay dhammaan sectionadii waa kuwa casharka doonaysid baad tegaysaa keliyata click un baad siinaysaa casharkii maxaa uu ka bilaabmayaa hore ayaabuu casharkii ka bilaabmayaa
bal course kale inta galana course kale inaan is enroll gareyn imika laba course baan halkan is enroll gareynay course-ka PowerPoint-ga iyo kan Word-ka bal kan Windows 10 ka kale galana Windows 10 baan galay haddaan curriculum-kan galo casharadii quful baa ku wada xidhan waayo ismaan enroll gareyn kan marka haddaan casharkan kala garis idhaahdo muxuu ku odhanayaa ma geli kartid casharkan fadlan marka koobaad is enroll garee koorsada ama koorsada isqor marka button-kan halkan enroll baad click siin kartaa markaad button-kan click siiso course-kiisaas ayaad isku enroll garaysaa balse maxaa ka horeeya bil shardi waa inaad marka hore log in soo tidhaahdo log in waa inaad marka hore aad soo tidhaahdo okay marka saasaad ku baran karaysaa dhammaan casharadii waa kuwa casharadii oo dhan waa kuwa markaad doonaysid inaad log out tidhaahdo waxaad tegaysaa button-kan log in-ka kabacdina halkan aad ka odhan kartaa account-kaagi waa kan log out baad halkan ka odhan kartaa ama sign out kabacdina saasaad kaga baxaysaa sidaas ayaabaad kaga bixi karaysaa sidaas ayaabaad kaga baxaysaa iminka haddaan casharadii galis idhaahno waynu Word-kan oo kale galis idhaahno log in ma nihin haddaan curriculum-kan galis idhaahdo casharadan ma geli karayo haddaan casharkas maxaa kuu soo baxaya markaaba message-kana soo baxaya oo ma geli karaysid waa inaad log in tidhaahdo dabeedna aad enroll garayso koorsada si aad u gasho buu ku odhanaya okay markaas saa samee waxaad samaysaa markaad inaad ka barato koorsada ama inaad barato koorsooyinka ku jira doonayso ama aad website-ka iska register garayso registration-kan tag kabacdina buuxbuuxi form-kan markaad form-kan buuxbuuxiso ee aad is register garayso laguna aqbalo ee lagu xaqiijiyo account-kaaga waxaad samayn karaysaa login baad soo odhanaysaa waa inaad si xasuusnaato username-kaaga iyo password-ka kabacdina login markaad tidhaahdo casharadii waad geli karaysaa cashar alla casharkaad doonta daawan karaysaa course alla course-kaad doontaad qaadan karaysaa inta course oo dhan baad qaadan karaysaa marka waa ku kaa adigu unbay kugu xidhan tahay qaabkaad u dadaalaysa qaabkaad wax u baranayso sidoo kale wixii haddii ay wax errors kugu yimaadaan contact-kan tag oo nala soo xidhiidh nambarradan nagala soo xidhiidhi kartaa iyo email-kan baad nagala soo xidhiidhi kartaa marka support-na waad naga heli kartaa oo wixii su'aalaad qabto wixii errors ka hor yimaada dhammaan waad nala soo xidhiidhi kartaa marka waxaan rajaynayaa inaad fahantay qaabka website-ka wax looga barto casharadaad website-ka ka heli karayso ama koorsooyinka imika diyaarka ku ah koorsooyinka iyaguna soo socda iyo programmeska aad ka heli karayso marka waxaad samaysaa is register garee hadda si aad u hesho dhammaan content-ka ku jira website-ka oo tusaale ahaan course-kan Windows 10 oo kale haddaad eegto preview tidhaahdo adigoon xataa isba register garayn website-kaadoon is register garayn oon xataa log in odhan casharada preview-ga cashar kasta hordhaca course kasta cashar hordhaca buu leeyahay oo hordhaca guuda click baad siin kartaa casharkaa waad daawan kartaa adigoon website-ka aan iska diiwaangelin waad daawan kartaa casharka u horeeya waxaad samayn kartaa courseska tag kabacdina course-yadan wada eeg mid kasta gal kabacdina curriculum-kan gal kabacdina preview-gan eeg cashar kasta bal eeg haddaad doonto casharka ugu horeeya oo iska eeg يعني casharka preview ba casharadu leeyihiin casharo free ayaa ku jira oo casharka ugu horeeya kale waa free badankooda intaa waxaan raacinayaa haddii aad mobile kaga jirto qaabkan ayaaba u soo baxaya qaabkan hadda aad aragto ayaaba u soo baxaya qaabkan iyo mobile-kana u soo baxaya website-ku home tab home-kii oo kale waa ka home page-kii marka maxaad samaynaysaa menu-ga xaggan sare iyo registration-kii wixii waa kan menu-ga xaggan kugu yaala button-kan aad click siinaysaa halkan maxaa kala soo baxaya courses page-kii registration-kii contact-kii login-kii marka doonaysa inaad register garayso registration aad click siinaysaa kabacdina page-kii caadiga marka horeba ku soo baxay markaad computer-ka isticmaalayso ayaa ku soo baxaya waxaad aragtaa inuu page-kii registration-ku kan yahay waad buuxbuuxinaysaa sidii aynu awalba kusoo aragnay markaad computer-kan isticmaalanay kabacdina submit baad odhanaysaa submit baad odhanaysaa markaad buuxbuuxiso dhammaan aad halkan ka buuxbuuxiso sidoo kale page-ka kalena way ku jiraan oo markaad menu-ga yar click siiso halkan haddaad courseska kala doonayso kanaad click siinaysaa markaad courseska click siiso wuxuu ku geynayaa page-kan ayuu ku geynayaa dabeedna koorsooyinkii halkan ayaad ka arkaysaa dhammaan koorsooyinkii course-ka doonaysid markaad click siinaysaa course-ka doonaysid markaad click siinaysaa click baad siinaysaa course-ka doonaysid halkan waxaad ka search garan karaysaa course-ka aad u baahan tahay markaan kan oo kale click siinay imika click baan siinay ama waan dooranay waan taabanay waxay noo soo baxaya waxay noo soo baxaya waa kan PowerPoint waa kan overview-gii baa kuu soo baxaya dabeedna waa kan course-kii enroll-kii waa kan comment-kii waa kan casharadii haddaad doonayso curriculum-kan baad tegaysaa curriculum-ka markaad tagto waa kuwan casharadii dhammaan casharadii waa kuwa waxaad samaynaysaa casharkaad doonaysid tusaale ahaan kan hore imika preview-ga kale doonayna inaan daawano kuwan kale iyagu waa wada waxaad aragtaa kuwan kale oo dhan wax ku xidhan quful balse kaa horeeya waa preview baan ku samayn karnaa marka enroll ma odhan course-kan oo mobile-kan ka isticmaalay marka enroll kama odhan ama login ma odhan marka waxaad samaynaysaa kan hore preview-gan isleegana click baan siiyey kabacdina casharkii hore ayuu ka bilaabmay casharkii hore
marka following button kan click karaysaa screen ka dhan hadda inuu wada qabsado doonaysid button kanaad click siinaysaa oo full screen ah haddaad doonaysid dhinaca inay kaaga soo baxaan casharadii kale ama casharka ku xiga haddaad doonaysid casharkan markaad dhamaysto button kan next kaad click siinaysaa casharka ku xiga ku keenaya haddaad doonaysid in dhinaca casharadii kale kaaga soo baxaan sidii computerkaba button ka yar baad click siinaysaa dibadna dhinacan casharadii kale aad arkaysaa dhamaan casharadii kale casharka doonaysid baad dul tagaysaa markaasaad click siinaysaa kabacdina casharkii baa ku bilaabmaya button kanaad click siinaysaa si casharka oo dhan full screen kugu noqdo kabacdina markaad doonaysid in screen ka dhan wada qabsado videoga daawanaysaana button kan yar ee full screen ka baad click siinaysaa kabacdina wuxuu noqonayaa marka screen ka dhan ayaa wada qabsanaya oo wada buuxinaya marka hadda imika enroll course kan odhan lahayn oo mobilka ka soo gali lahayn macal button-ki complete ki halkan noo soo gali lahaa marka mobilka iyo computerkana waa isku mid kaliya waxay kala duwan yihiin waa qaybtan sare ee menu-ga qaybta sare ee menu-ga ama qaabka uu mobilka uga muuqanayo iyo qaabka uu computerka uga muuqanayo haday waa responsive weyn website-ku oo qaabka uu mobilka uga muuqanayo iyo qaabka uga muuqanayo computerka labadaba waxa weeyaan waa qaab qurux badan weeyaan waa imika home tab kala dan tagno ama home page kala dan tagno waa kuwan dhamaan home page-kina waa ka qaabkan website-ku uga soo baxaya mobilkana course-ka doonaysid click baad siinaysaa tusaale ahaan kan word-ka kale click markaad siiso isaga hore ka geynayaba casharadii ama course-adii word-ka oo enroll gareey ka oranaya markaad doonaysid inaad isticmaasho mobilna waad isticmaali karaysaa waa kan menu-giina marka waxaan rajeynayaa inaad fahantay mobilna waad ku isticmaali karaysaa website-ka waad ka soo geli karaysaa computerna waad ka soo geli karaysaa